أفريقيا أكتوبر ومال المدو مدة الصومالية كوحد صدونا حسوق كوبحين تدبر شذا ميل سرك جري dhacdadii 14 Oktoobar waxay ahayd xasuuq dadweyne oo mudan in lagu qoro bogagga taariikhda adduunka iyo tan Soomaalida si ay u noqoto maalin la xusno dadkii halkaas ku geeriyooday 14 Oktoobar waa maalin ay dad badan ku baaba'een si ka fiirsasho la'aan laguna waayay dad haldoorka bulshada ah qaraxa 14 Oktoobar waxa uu sababay dhibaatooyin iskugu jira dhimasho dhaawac xanuun maskaxiyan iyo qalbi jab soo gaaray bulshada Soomaaliyeed waxaan baaq u dirayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan in ay si wada jir ah uga shaqeeyaan joojinta dhiigga bilaashka ku daadanaya fadlan walaalkayga muslimka ah ka shaqee helida dal horumarsan bulsho baraarugsan oo jooji burburka baaba'a ummadda Soomaaliyeed waxa aad intay dad aan tiro lahayn waxa burburay hanti fara badan waxa agoobay caruur badan waxa lumay mustaqbal dad hami sare ka laha nolosha 14 Oktoobar ee 2017 wax walba waxa ay leeyihiin sabab aan loo joojin karin waana marqaati ma doonto waxa dhacay in ay yihiin qadar eebe laakiin waa muhiim ka taxadarida daadinta dhiigga muslimiinta si aysan musiibadaas u soo laaban mar labaad waa muhiim inaan muujinaa midnimo wada jir iyo isku xirnaan kana heshiinaa waxyaabaha dhexdeena